حقوق الدمر كالقول هذا الله ترنا يا عاوي إذا دعا الرجل زوجته ننكو هادو حاسكي سوية دعوت صدوق ويرو فلتأتي نبي هاوتي ما دبوري هذا يقرب طايا يصدق يضع فردي يعني هالصوك عضو هاوتي ما دو دنتي ساو شكت وإن كانت هبت شكتو صبنوا على التنور فورنا بها كبستي عن شريط بهالدبيس هذا علومات التنور نبي محوها القبصة دي وغايو وحلق الضمر أوه البدني وحلق هوينيدو أوه البدنتا أوه ولنتا أوه مشغوش بدنتا يوي wax kan shay haysan ma jiro haday meel jileecdo waxa ka gubanaya kibistii dabkii baa leefaya waa in isheedu iyo gacanteedu iyo faraha waxay kula isla jiraan way halkaas nabi waqaaya gaarsiya ayadoo canjeero dubays oo birta dabka u saaran tahay ama muufadii foornada ay ugu jirto ama rootiga ugu jiro foornada iyo tanuurka haduu ninkeedu u yeero ha u timaado halkaas uu suuban oo gaarsiya rawu tirmidhi والنسائي وقال الترمذي حديث حسن طيالسي واوري ابن ابي شيبه واوري حديث واوريان اذا waxay kaga mashquul kartama jiro weey maxaa yeelay waa iniga soo sheegnay asaga ugu xaq badan gabadha ninkeedu aabaheed buu ka xaq badan yahay hooyadeed buu ka xaq badan yahay cid kala dhibar marka hadii ninku hooyo iyo aababa ka xaq badan yahay cid kala miyaad dhiman cid kala ma dhimano laakiin dumarka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin ninka iyo والدك وحق بدن هي والدك عد قبته ما جرته لا سعود هذا ومسألة إجماع إن زوجك وكحق بدن هاي لبدا والد مركز ضمر كلا مري حديث باكوي من خارج الصحيحين حلي الصبان عليه الصلاة والسلام بدأ دقر كنا تحسينيان قبل با أبهد بحنون صدي مركز إنك كذا وحي كتري والدك بحنون صدي إيه فصح أن صوب بحنانيه أن صوب مرليه مركز لما ما بحيسد بس كصبرتي دقي باجيريو ذي وحيت إيه فصح هذا إن أنا مرليه ونحنون كسو حكوا قاعد إيدي دي بلان جنازي سكاقة يقولوا مركا أن كسو تكذا أب ما يقول هلك كبح ميسد reerka ay carruurta dhaqaaqi meesha duqi baa sida lagu xabaalay hawshu markay dhammaatay iyo maalinta nabiga u timid waxay nabi allow aabahay baa xanuunsaday sayigaygii baan idan weydiistay inaan aabba soo salaamoon marliyo uu ii diiday waa iskaga dulqaatay duqi baa tii alla ku timid inaan janaaso ku soo tukadoon duqi sagootiyo ii diidan ummadii ka qayb gashay tacsida aan noqday duqi ku soo tukatay واسك صبري بل كورن بدري زوجي هوشو سمي نبي وحيلي ابها الله ان حريستي جنو كجرا waxaana jannada lagu siiyay adeecida aad zawjada aad yeesheeda ku amar sayrin waxa aabaha lagu jinneeyo lagu naxariistayba bitawaaciyatika li zawjika yeelida aad yeeshay زوجك أدل قاطي أبها لو جنّي وجنّا كهلاي وحيسويس إن لجلد دق عضيق علم ترى لجلد دق يسويس وحاول يصير في عم بادية شيء أبها وحلقون حريست صبر كذي مقل كأب مقاشد ودق ودنات الزوج كذا روايات قال كل شيء يعني مركي كنت النبي الله إن أنا أبها يسوس أنا ويدي ذي أطيعي زوجك زوج كذا أضيع إن أنا كسو تكذو إيدي ذي زوج كذا أضيع كدمنا والنبي وحولنا حريست أباه لو دم دافي هوش أصلا يصدرتين مركن نكون ميل وين محان من نك هذا خاص اللي قال يا مايا شريعة محينك هو حقوق أسيسي كلا دمبين بيربطها غير إسلام والإسلام بيربطها قولوا إنه سندومين بيربطها هذه الله سنادو محد الصومالي ذو لبا قول لقال عايز كما ديسو قود جيل مكوده جيري كرا لباتن هالات لبا قربعو اسلا كما هين كرتيد لبا ريتو اسلا كما هين كرتيد كما جيري كران والله كلا بخايا dad dunyadan waa inay kala dambayso xayawaankan xataa ogaa inuu sinaado aragtee laba urgi hadii ari la isku keero habeenka arigu nasan maayo seexan maayo qayba banaanka bari kadib ruwaagu layn boodka iska daadin hay waa taqaanaa nabigu wuxuu doonay kaleey salaatu wasalaam shariicadeenu reer degan oo kala dambeeyo isma qalle
furaya adoo dhashay markuu xooguu soo gaangaaray nagaf noqda tabar galo hadduu bilaabay hadalka ku soo celiyo odaygay wax ka dhex tolan iyo wiilkiisa si loogu dhex jiro ee islaanta ugu dhex jirtay saantu naftu qabo waaga dama tolkay gaari duqaydaa soo faragelin meesha wiilka la hadli odayga la hadli waaga dama inuu wiilku carray u badan tahay meeqa waagan xirta niman aabbahoodu soo caydiyay xirta noogu yimid kutubta nala dhageysan jiray la soo fudhiyey يعني dadku hadaysan kala dambaynay wax soconaya ma jiro gabadhu markay ninkeeda u sabarto adeecdo ilaahna ku raali galayso jannay ku helaysaa ma aha xumaan ee waa wanaag dariiqada islaamku kuwa garab maray waxay hayaan soo weydiiyay adduunka reer Yurub reer galbeedka waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan u noqono 1966 u noolaan jiray ma dhageysatee North America ka taaganta doodaha ka socda idaacadahooda doodaha ka socda waxaan rabnaa waa in loo noqdo sidii loo noolaa 1960 ilaa 70 wixii ka dambeeyay fasaadku bilowday dhahay maxaad ahaan jirteen rag iyo dumar kala soocan kala dambeeya caruur iyo wadaad iyo odayga dhalo iswata reer wada socdo meel tagahay ma jiray dhahan waan burburayba aafan ugu horeynin waxaan ku haysaan horumarka waxaan rabnaa in loo celiyo 1960 idinku maxaa rabtaan kuwii guriga ka baxayoobay ee ilaaha waxaan hormaynaba hal weyn ya tubtu naciliya leh idinku waxa leeyahay hore noo wada waa yaa bogta hore noo wada aad isu ilaaliya